وأنا السلام عليكم الملك جزتين كسر هذا الشهر شامان شامان ومقعدي وبيع شامان وقعدتي حوام كويس لكن هذا بين شيء وريو بلايو dadka saaran dadki qabiil ayay ka bixinayaan marka aan ka hadlay arrintii Wisby uu leeyahay lugaha kor u qaad madaxa hoos u dhig lugaha kor u qaad oo dhahay ka wada waa lagu jubeynaya camal dad badan ay yiraahdeen waxa ma fahansanid wax ma fahantid markaas hees labaada loo keenay maxaa la bilabuuf dumar caaye bahal ninna matiin naagna matiin horta mid baan ii sheegaa aniga haddii aan soo laabtay oo runtii aan soo laabtay oo salaada aan tukado alxamdulillah shukru oo masaajidka aan galo ma ahan marnaba ma ahan inaan afkeyga u gaabnaan doono oo afkeyga xirmi doono aniga wax walba oo laga dangeeryahay miseba dhibsanaayo waan ka hadlaya koleyto heesta Wisbyga ima dhibsan ruuxaad waan ku farxay waxaan ugu farxay ninkaasi keyga waa ninkii intuu iyasay uu dhahay magaciisa hataa inaan sheega marabi marka waxaa la inkaar koleyto inkaar xaqna kuma lihi leysa laakiin inkaar waxaa la meeshay kaaga soo baxdo way ku soo bixi doontaa way ku soo bixi doontaa biyahana aqoon bay ahaayeen marka wuxuu dhahay labalaboof dumar caay marka hore wuxuu dhahay wariyaha darbiga qabso ila qabriga isku soo gejeysmiya waad soo cabtay darbiga qabsooda ee saaxib haddana wuxuu dhahay kaale iinug bar kaale maanta maxaa lagu heesayaa kaale gus iinug ma lagu heesayaa adiga waa tiiyada dhulka leela galay moogtahay waa tiil irfay markaan dhahay intaan soo fadhiisay halkan waxaan ahay dadka faraxsan aan ahay markaan dhahay dhulkaa leela galay maantana hees uu nin heesaayo leeyahay nin kale kaale guska iinug baa labada dhageysanaya oo reaction laga bixinaya oo nin walba uu ku faraxsan yahay wuxuu ku faraxsan yahay magacadi siduu ninkaa u heesa camal waxaa leeyahay wey thumbs up kaale waa leeyahay marka dunida waa hypocrite ayaa ka buuxo markii haddii aad aragtana cunug yaro iska soo ciyaarayo wiil yaro oynayaan arkaya tiktok oo iska yara jilacsan haddee asalkeena hore aniga waxaan idin jiray gabdhaha kusoo dhex kortay markii la arkay jabjilaaca waana rudha gabdho badanaa ila dhashay gabdho badanna reerku way joogeen marka gabdhaha kusoo dhex korto saas u yara jilacsanta ayaa la dhihi jiray marka qaabyo badan waxaa jirtaa rag badan oo iska yara jilacsan siduu gabadhii afkeeda u fiirinayay hooyadii afkeeda u fiirinay iska yara jilacsan marka cunuga yar waxaan arkay soo heeso oo misaba iska adiga xoogo jilaajilaayo commentiga markaan fiiriyana cayda uma malaysa oo khaniis labalaboof balaayo marka cunuga iska faraxsan oo iska heesaayo oo hadee iskaga haystaba noloshiisa dee stresska wax cayda lagama daaynayo oo waa la dhaafinaya laakiinse nin intuu kuu soo heesay dhahay saaxib kaale guska iinug waraa kaale iinug muxuu ka wadaa maxaa la doogayaa meesha munaasib baa taal sawir waxaan ku arkay heesta markaan fiiriyey cunug yaroo magaceeda haysto koobka caanaha maxaa la dhihi jiray af Soomaaliya bar kaalaya maanta kaale aan iinug midada Wisby waxaan jeclahay inuu xaas leeyahay waraysi waxaan ku arkay la waraysanayo inuu xaas leeyahay maasha allah uu leeyahay qofku waa la bahdilaa waa la caayaa
qaabyo badan oo lagu sacaayo mise lagu soo jebiyey ayaa jira laakiin maanta kaale gus inuu may soo maraysaa sheekada hees ay ka maraysaa ya xagga markaan u baxo waxaan rabaa kaloo inaan ka hadlo Sharma Boy Daahir Culusow wax baad ka dhigaysaa waxaad ka dhigaysaa dahab waxaad saaraysaa darajo uusan lahayn dabaq uusan magaceedu uu kasoo degi karin ayaad saaraysaa Daahir Culusow cunug yar waxaa tahay aada loo jecel yahay dhalinyarada oo dhan jecel yihiin fankiisa la jecel yahay aada loo taageeraa tahay ha isku jilcinin Daahir Culusow wax qiimo uu leeyahay ma lahan wax inta kale ugu fiican waxay tahay wadankuu joogo asaga wadankuu joogo qof ugu tago magacaadi soo dacweeyo maxkamad lala koro dhibaatadu dadku ku hayo sida looga reebo intaas baa ku filan marka walaalo wax ya darajo uusan lahayn ha u yeelin ha u ooynin ha isku jildilcsanin ninkan magacaadi ilan qofka clip kale waxaa jirta aan magacaadi tiktok ka arkay yar ooyin ayuu leeyahay walaana qaniismigii xaaf waxaan leeyahay xaas baan leeyahay maxaad iga rabtiin iska kay dhaafa uu leeyahay markaas commenti waxaad arkaysa haddana sidii marka qofka biniaadan markaad barito ood magacaadi aada oyso waa kasii darayaanba dad baa waxaan arkaya reaction leeyahay walaha ooynin dirig baa ilaahay kaa dhig ninka raga ma ooyin maad maqasha adiga ya ninka raga dareen ma laha miya ya qofka hadduu xanuunsado mise uu dhibaato qabato waa ooyaa marka aniga maanta intaas maan nila soo wadaagi kara waa islaamay kolete biishi calan hataa waa la gadan lahay waa islaam till next time